dabayaqadii sanadihii 1980kii taliskii macangagaha ee Maxamed Siyaad Barre iyo militarigiisii waxay gumaadkii ugu darnaa u geysteen shacabka reer Soomaaliland. xilliga dadka Soomaaliland waxa la isugu daray duqeymo cirka ah oo loo adeegsanayo diyaaradaha militariga oo hawada sare ka rusheynayay shacabka magaalooyinka iyo meelaha miyiga ah. dhinaca dhulkana waxa dadka dusha laga marinayay dabaabadaha iyadoo si arxan darro ah loogu garaacayay madaafiicda goobta. 25 sano kadib Soomaaliland waxay hadda ku hawlan tahay in ay soo bandhigto cadeymo dheeri ah oo ku saabsan xasuuqii loo geystay shacabkeeda, waxaana dawladdu ay ku dadaalaysaa in tirokoob dhaba ay ka samayso dadkii kaga dhintay dagaaladii Siyaad Barre ku gumaaday shacabka gobollada Soomaaliland. labadan barnaamij oo ah baadhitaanno qoto dheer waxa ay daboolka ka qaadayaan xaqiiqooyin murugo badan xambaarsan oo aanay hore u ogeyn qaybo badan oo ka mid ah ummadda afka Soomaaliga ku hadasha iyo adduunweynaha intiisa kale. waxaa la soo bandhigayaa shacab loo geystay mid ka mid ah xasuuqyada ugu foosha xun ee ka dhacay dunida korkeeda iyo xabaalwadareedyo ay ku duugan yihiin boqolaal kun oo qof. halkani waa Soomaaliland, qaran gooniisutaagiisa ku dhawaaqay 1991kii. hase ahaatee adduunku aanu weli si rasmi ah u aqoonsan. waa waddan xasiloon oo si walba uga duwan waddanka ay ka go'een Soomaaliya oo isagu caan ku ah dagaallo dhiig badani ku daato, barakac, falal burcadbadeed, argagixiso iyo amni darro ka taagneyd muddo rubuc qarni ah. 25 sano gudahood Soomaaliland waxa ay ku guulaysatay dhismaha hannaan dawladeed oo taabagal ah, dib u dhiska magaalooyinka ay dagaaladu burburiyeen iyo kobac dhaqaale oo la isku halayn karo. waana dal ka mid ah dalalka mustaqbal ahaan ugu nasiibka wacan adduunka marka loo eego duruufihii adkaa ee uu soo maray. waxaase taariikhdiisa ka mid ah qaybo mugdi ah oo ay ku gadaaman yihiin mahadhooyin dagaal oo ka dhacay 1980kii. inta badan qoys kasta oo ku nool Soomaaliland waxaa gumaadkii isirnacaybka ku salaysnaa kaga dhintay ehelo tiro badan, ubad aad u yaryar, aabbayaal, hooyooyin uur leh iyo qaybo kale oo ka mid ah dad qaali ku ah oo ilaa hadda aan qulubtooda ka bixin. dhibaatadii uu Siyaad Barre ku hayay shacabka Soomaaliland waxay mas'uul ka ahayd samaysankii ururkii dhaqdhaqaaqa Soomaaliyeed ee SNM oo ahaa naftood horayaal ka kooban saraakiishii dawladda ee ka soo jeeday gobollada waqooyiga iyo dad rayid ah oo hubaysan, isla markaana dagaal adag la galay militarigiisii oo wakhtiga ahaa mid ka mid ah militariga ugu awoodda badan Afrika si ay uga difaacaan shacabkooda lagu xasuuqayay sabab la'aanta, ilaa ay ugu dambayntiina SNM ku guulaysatay gacan ku dhigidda guud ahaan xuduudaha Soomaaliland kana xoraysay taliskii xasuuq foosha xumaa ku hayay dadkooda rayidka ah. boqolaal kun oo shacab ah ayaa la laayay, waxaa la barakiciyey ku dhowaad 1 milyan oo qof. intii badbaaday iyo qaraabada dadkii la xasuuqay aad ayay maanta ugu adag tahay in xusuustooda ay ka baxdo taariikhda xasuuqan foosha xun ay ku waayeen dadkooda, halka qaar ka mid ahayna ay ilaa hadda ku dadaalayaan sidii cadaaladda loo horkeeni lahaa kuwii ka dambeeyey gumaadkan. To respond to the allegations. I will not touch you. I will not touch you. No comment.
casiis diiriye waxa uu ka mid yahay shakhsiyaad reer somalilan ah oo habeen iyo maalinba ku howlan sidii cadaaladda loo horkeeni lahaa ugu yaraan saraakiishii sarsare ee hoggaaminaysay dagaalka waxuu xasuuqan ku waayey qaar badan oo ka mid a qaraabadiisa taasina waa sababta uu u qabanqaabiyey safarka jose bablo bareba oo ah nin ku xeel dheer dabagalka xasuuqyada iyo dembiyada dagaalka una dhashay dalka beyru ee koonfur ameerika iyo kooxuu hoggaaminayo oo ka soo shaqeeyey waddamo badan oo ay ka dhaceen xasuuqyo waa tallaabo xaasaasi ah hawshan lagu raadinayo xaqiiqooyin dheeraad ah oo la xidhiidha xasuuqii ka dhacay somalilan 25 sano ka hor waxaanu maskaxda ku haynaa in dalkani uu ahaa goob dagaal ilaa haddana waxaanu haynaa arrimo dhowr ah sidaa daraaddeedna kuma rajo weynin in wax kastaaba noogu qabsoomaan qaabkii aanu rabnay waxa ay dadka ku qaadanaysaa wakhti dheer inay ilaawaan islamarkaana ay caafiyaan ciddii ka dambaysay xasuuqan hase ahaatee waxaad mooddaa inaannu ku sii dhowaanayno in dadku iska ilaawaan taariikhda xasuuqaa loogu laayey boqolaalka kun ee qof saamaxadda iyo ilowshiyuhu waxa ay imanayaan keliya marka la aqoonsado xadka u gaadhsiisan yahay xasuuqani xog ururintanina waa hawl la rabo in dadku ay door bidaan in ay ilaawaan sidaa darteed waa in aad u oggolaataan fursad ay dadkuni kaga hadlaan xasuuqan ka doodaan islamarkaasina qaarkood ka ooyaan si ay maskaxda uga keenaan talo kasta oo ay u arkaan in ay sax tahay arrimahaasi oo dhan waxa ay keenayaan in dadku ka soo kabtaan dhaawacyadii soo gaadhay si ay ugu wada noolaadaan nabadgelyo taariikhda oo dib loo xusuustaana waa hab lagu dhiso nabadgelyada jose bable bareba waa xeeldheere ku takhasusay baadhitaanka xasuuqyada iyo dembiyada dagaalka ee ka dhacay dunida isaga iyo kooxdiisu waxa ay somalilan u yimaadeen si ay gacan uga siiyaan ururinta caddaymo ku saabsan xasuuqii loo geystay dadka reer somalilan jenaraal siyaad barre waxa uu awoodda ku qabsaday afgembi milatari isagoo adeegsanaya siyaasad digtaatoriya iyo dagaal qabow oo ku laynayo dadka ka soo jeeda waqooyiga waxa uu qaatay nidaamka hantiwadaagga waxaana uu tallaabada taageero militari oo ballaadhan kaga helay midowgii sofiyeeti ee dawladdii ruushka jenaraal siyaad barre waxa uu wakhtiyadii dambe la soo baxay gaboodfal awoodeed isaga oo tacadiyo toos aana kula kacay dadkii ka soo jeeday deegaannada somalilan kelitalisnimadiisii iyo tacadiyadii uu ku hayey dadkii ka soo jeeday waqooyigu waxa ay xadka goosatay horraantii 80aadkii xilligaasoo dadka reer somalilan ay si dhab ah u dareemeen waxaana bilaabmay kacdoon hubaysan oo dagaal la galay maamulkii macangaga ahaa ee afweyne kacdoonkaas oo uu hoggaaminayo ururkii snm oo wakhtigaa la aasaasay waxa uu maxamed siyaad barre kaga jawaabay awood militari oo adag iyo xasuuq lagu tirtirayo gebi ahaan dadyowgii ka soo jeeday somalilan halkani waa deegaanka malkadurud oo ah goob ay ku yaalaan xabaalwadeedyo lagu duugay dar badan qiyaas ahaan badkoodu waa 1 milyan oo laba jibaaran waxa ay bartamihii 1988 horraantii bishii May iyo dabayaaqadii bishii Juun markii ay jabadii SN ay jabisay ciidamadii Siyaad Barre markaas oo militarigu uu qaaday weeraro oo lagu burburinayo shacabka iyo magaalooyinka Siyaad Barre siyaad barre waxa uu ciidamadiisa amar ku siiyey inay dhulka la simaan dhismayaashii magaalada Hargeysa iyadoo loo adeegsanayo diyaarado dusha sare ka duqaynayay iyo kaarayaal dhinaca dhulka madaafiic kaga garaacayay Dr. Xuseen Bulxaan oo ururiyay caddaymo la yaab leh oo ku saabsan weeraradii lagu burburinayay magaalada Hargeysa iyo qaabkii loo gumaaday shacabka ayaa sharaxaad ka bixinaya sidii ay wax u dhaceen waxaan helay faahfaahin iyo koobiga dokumentariyo militari oo ay lahaayeen militarigii Siyaad Barre saraakiisha iyo askartii Siyaad Barre waxa ay qorayaan qaabkii ay u burburinayeen magaalada Hargeysa iyo sidii ay u xasuuqayeen shacabka iyaga oo raba in taliskoodii sare ee fadhiyay Muqdisho ay tusaan hawsha fiican ee ay qabteen tani waxa ay tusaale u tahay sida raggani ay u sharaxayaan uguna qanacsan yihiin hawsha ay qabteen marka uma baahnid caddaymo kale tusaale ahaan waxa aad ka fahmaysaa ficiladooda iyo awaamiirta ay bixinayaan
saraakiisha ciidamadu ee ku aadan waxa ay qabanayaan. These people were bombarding as if they were actually killing some kind of beasts that were there, not humans. And their language was as violent as their action. Kill, destroy, rape, kill all but the cause. ilaa hadda waxaa halkan yaalla hadhaaga qaar ka mida lafihii dadka la laayay. waxaan aaminsanahay in dad gaadhaya 50,000 oo qof ay dawladda Siyaad Barre ku xasuuqday goobtan. waxa ay soo ururiyeen shacab tiro badan oo aan waxba geysan oo ay ka mid yihiin aabbahay, walaalkaygii iga yaraa iyo adeerkay. halkan ayay ku laayeen kuna aaseen. aas may ahayn ee ciidda uun bay ku rogeen. aad ayay aniga ii murugaysiinaysaa arrintani maxaa yeelay ilaa hadda waxaa halkan yaalla lafihii iyo maryihii dadka oo ka soo lusha garbadan. marka arrintani ma aha arrin si fudud loo ilaawi karo. waa arrin murugo badan oo loo baahan yahay in la xasuusnaado isla markaana ay noqoto qayb ka mid ah taariikhdeeda. So what happened here is not something that we can forget easily. It is something that is very painful, that needs to be remembered, that needs to be part of our history. casiis diiriye waxa uu deegaanka Malka Durduro u yimi si uu ula kulmo nin oday ah oo waqtiga ciidamadii Siyaad Barre ay ku amreen inuu aaso meydadka dadkii tirada badnaa ee ay ku xasuuqeen goobtan. soo bax baa la yidhi aan soo baxay waa maxay baan waxay dhan meyd baa arladii ka buuxa Malka Durdure kala aas cagaf la soo baxo soo soco cagaftii baan dabeetana soo saaray waan kale godadkan sii qotaa subaxdii intaan kala laho iyo godadka sii qodaa saasaan godadka u qodaa saasaan u qodaa ibna isku roga sida iyo halkaana ku shubta halkaana ku shubta iyo saasaan ku aasa sida dhagaxa guryaha la dhigayo iyo ku shubta isku rogid halkan dadkuna yani uu halka ugu faraa badan leh ilaahu qiyaasantay aan qofna tirin karin ayay marka arrimuhu argagaxle oo inaan arag oo inaan maqal ayay haayeen waxaan islahaa anugu dad madaxba kama noola. 100,000 oo ka mid ah dadka la xasuuqay ayaa tarab loogu rogay ciidda isla markaana ku duugan goobo aan la calaamadin oo ku yaala hareeraha magaalada Hargeysa. xasuusta maalmaha murugada leh iyo muuqaaladii argagaxa lahaa waxaa maskaxdii iyo maankoodiiba ku waayay 100 goob joog ahaa isla markaana isha ku hayay sida ay askartii arxanlaawayaasha ahaa u gumaadayeen dadkooda oo aan wax dambi ah geysan. waxaan sidoo kale ka shaqayn jiray daaweynta dadka xanuunada maskaxda ku dhaceen. maalin walba waxaa laygu yeedhi jiray dad ku waashay dagaalka. waxaa layga soo dooni jiray gurigayga, waddooyinka iyo meel kasta oo aan marayo si aan u daweeyo dadkii badbaaday ee arkay duqaymihii diyaaradaha iyo xasuuqii dadka. inta badan oo ka mida dadkii badbaaday waxaa ku dhacay khalkhal dhinaca maskaxda ah iyo waali ay ka dhaxleen sanqadhihii madaafiicda culus ee lagu garaacayay magaalooyinka iyo gumaadkii dadkoodu. xanuuno maskaxda ah oo xun ayaa ku dhacay dadka, waxaana ilaa hadda lagu ilaaliyaa guryahooda, jeelasha iyo goobaha caafimaadka ee lagu daweeyo dadka dhimirka wax ka qaba. sidaa darteed waxaan in badan oo wakhtigayga ka mid ah ku dhammaystay in aan daweeyo dadkaasi ku waashay dagaaladii ka dhacay dalka. 45% dadkii magaalada deganaa waxa ku dhacay argagax iyo khalkhal maskaxda ah. in badan oo ka mid ah dhibanayaasha ayaan weligood ka soo kabanayn dhaawacyadii kala duwanaa ee 30 sano ka hor ka soo gaadhay dagaalkii Siyaad Barre. xaqiiqdii ma qabo rajada ah inaan helayo hadhaagii lafihii qoyskayga. ma garanayo meel ay ku duugan yihiin, laakiin haddii kuwii dembiga intan leeg iga galay inta ay ii yimaadaan ay yidhaahdaan iska ilow wixii kugu dhacay, wixii ku dhacay aabbaha, iska ilow wixii ku dhacay walaalka, wixii ku dhacay adeerka iyo 4 milyan qof oo reer Soomaaliland ma aha arrin aan aqbali karo.
muhiimaddu waxay tahay in lala xisaabtamo kuwii mas-uulka ka ahaa murugada intan leeg. Siyaad Barre waxa uu sannaddii 1995kii bes ugu dhintay waddanka Nigeria oo firdhad ku galay, laakiinse dambiilayaashii kale waxa ay ku guulaysteen inay ka baxsadaan cadaaladda iyo garsoorka. haddase waxaa jira dadaallo caalami ah oo cadaaladda lagu horkeenayo mid ka mida gacan ku dhiiglayaasha